Suudaan waa u maalmo kale oo ay lugaha la gashay dagaallo soo noqnoqday. yaraan 3 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen caasimadda Khartoum oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada militariga Suudaan iyo xoogagga gurmadka degdega ah ee Dacmu Sariic RSF. Dagaalka ayaa bilowday gelinkii dambe ee shalay xilli aan la filayn oo dadku ay si caadi ah u wataan hawl maalmoodkooda, waxaana caruur badan ay ku go'doonsan yihiin iskuulada. Qaraxyo, rasaas iyo madfacyo ayaa laga maqlay goobaha xarumaha dawladda, talisyada ciidamada, garoonka diyaaradaha iyo xaafadaha qaar. Khasaare nafeed oo dhimasho iyo dhaawacba leh, burbur hantiyeed iyo gebi ahaanba isku socodkii duulimaadyada iyo ganacsiga oo istaagay ayuu dhaliyay dagaalkii shalay ka qarxay caasimadda Suudaan ee Khartoum. Muuqaal laga duubay garoonka diyaaradaha ayaa muujinaya diyaaradaha rayidka ah ee halkaas ku gubanaya. Labada dhinac ayaa midba sheeganaya inuu gacanta ku hayo xarumaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha, xarumaha dawladda iyo talisyada ciidamada. Diyaaradaha militariga ayaa duqeeyay xarumo ay ku sugan yihiin xoogagga la dagaalamaya. Qoraal ay soo saareen militariga Suudaan waxa ay ku sheegeen in RSF ay tahay ciidamo fallaaga ah oo ku qaraabanaysa ciidanimada. RSF waa ciidan aad loo diyaariyay, waana ciidanka xaaladaha gaarka ah ka jawaaba. Waxa ayna sheegeen in ay la wareegeen garoonka diyaaradaha, wasaaradda difaaca iyo xarumo dawladeed oo kale. Shacabka ayaa guryahooda ku sugan, waxaana jira walaac weyn oo ku aadan xaaladda caasimadda Suudaan ee Khartoum. Rasaas ayaa weli dhacaysa, dadkuna guryahooda ayay ku sugan yihiin. Cabsi xooggan ayaana jirta, ayuu yiri goobjooge la hadlay BBC-da. Safiirka Mareykanka u fadhiya Khartoum ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda. Waxaan ku soo toosay dhawaaqa rasaasta iyo dagaalka. Waxaan hadda ku gabanayaa meel ay joogaan shaqaalaha safaaradda, si la mid ah sida ay guryahooda ugu sugan yihiin shacabka Khartoum, ayuu yiri safiirka oo ku baaqay in la joojiyo xabadda. Safaaradda Ruushka ee Suudaan ayaa iyana sheegtay inay ka walaacsan tahay xaaladda kacsan, waxa ayna ku baaqday in xabadda la joojiyo. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo war-saxaafadeed xalay ka soo saartay xaaladda Suudaan ayaa ugu yeertay militariga Suudaan iyo Dacmu Sariic in ay wada hadal ku dhameeyaan khilaafka isla markaana la xaliyo. Xoogagga Dacmu Sariic ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan 3 garoon, hoyga taliyaha ciidamada iyo madaxtooyada. hase yeeshee waxaa sheegashadaas beeniyay hogaamiyaha Suudaan General Cabdifataax al-Burhaan oo u warramay telefishinka Al Jazeera. Waxaa jira warar kale oo sheegaya in ay rasaas ka socoto xarunta warbaahinta dawladda, iyadoo in dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in xoogagga Dacmu Sariic ay gacanta ku hayaan xaruntaas. Taliyaha xoogagga General Maxamed Xamdaan ayaa wacad ku maray in aanu dagaalka joojin doonin ilaa inta ay ka qabsanayaan saldhigyada ciidamada. Waxa uu sheegay in General Burhaan uu yahay dambiile, isla markaana la dili doono ama cadaalad la horgeyn doono. Haddaba maxaa la isku hayaa? Labada janan wixii ka dambeeyay afgembigii dhacay Oktoobar 2021 waxa ay Suudaan ku xukumayeen gole ka kooban taliska militariga. Xoogagga Dacmu Sariic waxa ay si toos ah uga amar qaataan hogaamiye ku-xigeenka golaha General Maxamed Xamdaan, halka taliyaha militariga uu u taliyo General Cabdifataax al-Burhaan oo ah madaxa golaha talada haya. Heshiis ku aadan in xukunka lagu celiyo dowlad rayid ah ayaa socon waayay kadib markii labada janan ay isku khilaafeen qaabka ciidamada gurmadka degdega ah loogu biirinayo militariga Suudaan. Ciidanka gaarka ah ee RSF ayaa doonaya in ku biiridda ay dhacdo 10 sano kadib, hase yeeshee militariga ayaa doonaya in hawsha lagu soo gabagabeeyo 2 sano gudahood. Beesha caalamka ayaa muddo waday dadaalo lagu dejinayo xiisadda ka taagan Suudaan iyo sidii xukunka loogu dhiibi lahaa xukuumad rayid ah. Mareykanka iyo Britain ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin dagaal ka socda Khartoum, loona baahan yahay in xaaladda la dejiyo.